Bismillahirrahmanirrahim. Ciyaarta soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal soo dhawaada. Waa barnaamijkeeni aan galabkaas maalin kasta oo sabdiya halkaan idinkaga soo gudbi jirnay. Maantana waxaan idinkuu soo gudbinaynaa haddii ilaahay idmo laba arrimood oo kala ah laba arrimood oo hadda jirta oo mid aan hubno inay tahay cadaalad darro ama ay tahay mid la xiriirta cunsuriyad iyo arrin la xiriirta arrintii wiilashii ku xirnaa magaalada Balanballe iyo xaaladoodu meeshay marayso iyo dadka aan kala xiriirnay ayaan iyadana idiin soo gudbin doonaa. Waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa iyadana baafin haddii ilaahay idmo wiil baafinaya hooyadiis oo aanu garanaynin ama aanu weligiiba la kulmin aanu aqoonin muddo dheerna ay kala maqan yihiin. Balse marka hore waxaan insha allah idiin soo gudbinayaa nin aan muslim ahayn isagoo aan muslim ahayn ee ka hadlaya sidii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu uga hor yimid uu ula dagaalamay cunsuriyadda. Marka ku soo dhawaada. Bilal ibn Rabah was born into slavery, a condition that was compounded after he became one of the first believers to follow the teachings of Prophet Muhammad. Bilal's father was an Arab slave, and his mother was a former princess of modern-day Ethiopia, who was also enslaved. Bilal was ruled by a master who punished him for his conversion to Islam. He dragged Bilal around Mecca, encouraging people to mock him. He even tried to force him to renounce his faith by placing a large rock on his chest and pinning him on the ground. But far from renouncing his faith, Bilal showed a defiance and strength in the face of persecution and violence. Impressed by Bilal's steadfastness to the Islamic faith, Prophet Muhammad sent one of his closest friends, Abu Bakr, to pay for Bilal's freedom. Once freed, Bilal rose to prominence in the early Muslim community. Prophet Muhammad appointed him to serve the mosque by using his melodious voice to call the believers to prayer. Bilal was a black man, and for some, his blackness made him unfit for such an honor. On one occasion, a companion of the Prophet, a man named Abu Dar, disparagingly said to Bilal, "You son of a black woman." This drew a swift rebuke from Prophet Muhammad. "Are you taunting him about his black mother?" asked the Prophet. "There is still some influence of ignorance in you." The ignorance the Prophet identified was rooted in the misguided view that a person's race reflects his or her moral character or social status. In fact, the Prophet's message of racial equality stood in stark contrast to the prevalent racial animosities of 7th century Arabia. Scholars refer to the period prior to the advent of Islam as Jahiliyyah, a time of ignorance,
which included racism. Arguably, Prophet Muhammad was the first person in human history to declare, in no uncertain terms, that no person is above another by virtue of race or ethnicity. This declaration is crystallized in one of the Prophet's notable speeches, his last sermon, as it is known, which was delivered on Mount Arafat in 632 AD. In that sermon, the Prophet unequivocally condemned racism when he said, "All mankind is descended from Adam and Eve. An Arab has no superiority over a non-Arab, and a non-Arab has no superiority over an Arab. A white person has no superiority over a black person, nor a black person has any superiority over a white person, except by piety and good action." Ever since then, Prophet Muhammad's teachings on racial equality have inspired human beings to strive for racial equality and justice for all. Consider the life of Al-Hajj Malik al-Shabazz, more commonly known as Malcolm X, the Black Muslim civil rights leader who battled racism in the 1950s and 1960s. After performing the Hajj, or Islamic pilgrimage, to the city of Mecca, Malcolm wrote his famous letter from Mecca, in which he said, "There were tens of thousands of pilgrims from all over the world. They were of all colors, from blue-eyed blondes to black-skinned Africans. But we were all participating in the same ritual, displaying a spirit of unity and brotherhood that my experiences in America had led me to believe never could exist between the white and the non-white." He added that he had never before seen sincere and true brotherhood practiced by all colors together, irrespective of their color. The Hajj for Malcolm represented a shift away from racism and towards racial equality. The teachings of Prophet Muhammad encouraged all people to strive towards anti-racism, which is quite different than simply non-racism. While non-racists do not openly express prejudiced views, they also do not work to racism in any given society. The Prophet Islam actively challenged and dismantled the covert, the overt, and the systematic racism around him. He identified racism as a symptom and identified its root cause as arrogance in the human heart. As our world becomes more and more diverse and interconnected, it is imperative that we strive to follow the teachings of Prophet Muhammad. I am not a Muslim myself, but I have to say that I am deeply inspired by the anti-racism of Prophet Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalayaal soo dhawaada dhammaantiin. Sababta aan idinkugu soo daayay ninkani waxa sidaad maqlaysaan ninkani asagu muslim ma ah. Laakiin wuxuu ka hadlayaa sidii rasuulku sallallahu alayhi wa sallam aan diinta islaamku ay ula dagaalantay cunsuriyadda. Wuxuu ka soo sheekeeyay Bilal radiyallahu anhu inuu ku dhashay adoonnimo oo iyadoo reerkiisa la leeyahay adoomo ay yihiin uu dhashay. Abiisna inuu ahay adoon carbeed, hooyadiisna inay ahayd boqorad hore waddankan hadda loo yaqaano Ethiopia inay ahayd. Xaaladda Bilalna ay sii xumatay radiyallahu anhu markii uu qaatay diinta islaam. Iyo sidii ninkii uu adoonka u ahaa adoonsanayo uu ciqaabay, wadooyinka Maka uu ugu wareejiyey, dhagxaanta uu xabadka uga saaray, ugu qasbay inuu diinta islaam isku dayay inuu ku qasbay diinta islaamka inuu ka baxo, ka bacdina Bilal uu ku adkaystay. Marka ka bacdi rasuulku sallallahu alayhi wa sallam uu u diray Abu Bakr radiyallahu anhu si uu soo iibiyo oo uga soo xoreeyo ninkaas Bilal haysta. Markii la xoreeyana Bilal uu ku biiray community-gii muslimka ahayd, ka bacdina nabigu uu u magacaabay sallallahu alayhi wa sallam inuu u xushay inuu noqdo muadinkii Maka uu ka noqdo muadin si uu dadka salaada oo din ugu yeero salaada. Arrintaasi wuxuu leeyahay dad badan ayay waxay ay la noqotay maadaama uu yahay nin madow inaanu astaahilin meeshaas in loo dhiib. Okay,
waxa uu sheegay uu leeyahay macnaha qisadii wuxuu ka sheekaynayaa wuxuu u socdaa adiga meesha uu kaga hadlaya cadaaladda rasuulku meeshu ka gaaray wuxuu ka sheekaynaya mar inay dhacday inay abudar asxaabi galayra abudar radiallahu canhu inuu ku yiri bilaal waxaa tahay wiil ay dhashay islaan madow arrintaasoo nabiga si deg dega uga caraysiiday uuna uga jawaabo yiri war maxaad ku caynaysaa inay hooyadiis tahay islaan madow waxaa weli kugu jirta jaahiliyaddii marka wuxuu ka hadlayaa in waqtiga nebigu inuu ahaa qofka bini aadamka ugu horreeyey oo taariikhda historiga si toosa ula dagaalamay taariikhda cunsuriyadda markuu nebigu leeyahay macnahu soo qaatay inuu yiri qof macnaha carabku iyo cajabku mataqaanaa kalama fadli badna waxa lagu kala fadli badan yahay waa keliya oo mataqaanaa waxay tahay taqwada ilaahay marka walaalayaal ujeeddada aan intaa usoo qaadanaya waxay tahay qofka intaa noo soo arrintaa ka hadlaya waa qof aan islaam ahayn wuxuu ku ammaanayaa nebiga iyo diinta islaamka inay tahay nebigu inuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee bini aadana ee si cad ula dagaalama cunsuriyadda korna usoo qaada mataqaanaa sinaanta iyo cadaaladda iyo diinta islaamkuba inay yihiin wixii horseeday ayuu ka hadlaya marka suurtagal ma tahay annagoo muslimiin ah oo ah followerskii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inaan annagu cunsuriyiin noqonno haddana aan u nasab sheeganno diinta islaamka iyo inaan jecelnahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam arrintaas markaan intaas uga gudbo waxaan rabaa inaan wax yar oo baafin ah intaa halkan geliyo muddo hadda dhowr sano sanado laga joogo waxaa ila soo xiriiray wiil oo raadinaya hooyadiis wiilkaas hooyadii raadinaya wuxuu yidhi waxaan ku dhashay wardhiigley 75 waa nin weyn macnaha wiil yar ma aha inkastoo hadda sanada kasoo wareegay oon iska ilmaamay waxaan ku dhashay wardhiigley waxaan aabbahay hooyaday waa kala tageen waxaanay qaatay aabbahayna wuu dhintay kabacdii hooyadayna waxaa loo sheegay inaan dhintay aniguna sidaas darteed anigu waa noolahay waxaan raadinayaa buu yidhi hooyaday wiilkaas wuxuu sheegay in la yidhahda maxamed xasan nuur saayid ama maxamed xasan bilqe nuur saayid hooyadiisna wuxuu ku sheegay in la yidhaha maryan ciise wuxuu sheegay hooyadii inay ka soo jeedo magaalada oodweyne somaliland wuxuuna sheegay inay hooyadii ka soo jeedo qoyskii la yidhaha reer sugulle inay ka soo jeedo sheegay intaasna wuxuu ii sheegay buu yidhi aabbahay saaxiibkiis marka wiilkaas hooyadii wuxuu sheegay in laga yaabo ninkaasi inay joogto loo sheegay inay soo gasho dalkan ingiriiska 90meeyadii markii la kala qaxay da'da hooyadiis hadda waxaa lagu qiyaasayaa inay tahay 60 ilaa 70 hadday nooshahay ama cid garanaysa ay jirto isaguna inuu nool yahay oo sidii loo sheegay aanu dhiban uu joogo Soomaaliya wiilka waxaa la yiraahdaa maxamed xasan bilqe nuur saayid aabiis wuxuu ahaa askari hooyadiisna waxay ka soo jeedaa oodweyne waxaana la yiraahdaa maryan ciise waxayna ka soo jeedaa siduu sheegay aabihiis saaxiibka uu sheegay inay ka soo jeedo qoyska la yiraahdo reer sugulle oo ka soo jeedo oodweyne marka waxaan codsanaynaa in la sheergareeyo dadka lala wadaago si uu wiilkaasi u helo hooyadiis ama hooyadaas u haysatay wiilkeedii inuu dhintay inay u hesho wiilkeeda in lala wadaago intaas marka arrintaas uga gudbo waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo xaaladda wiilashii ku xirnaa magaalada balanballe inta aan ka ogaaday iyo inta meelood aan u gudbinay haddii ilaahay idmo ayaan ayadana arrintaa rabaa in idinla wadaago wiilashaas ku xiran magaalada balanballe horta da'doodu waxa weeye 20 da'doodu waa 14 iyo 13 fadlan sheergareeya barnaamijka sidii aan ula wadaagno dadka waxa weeye wiilasha waa 13 jir iyo 14 jir waxaan la hadlay maanta wiilashan hooyada dhashay oo la yiraahdo Barliin Axmed Daahiye oo ii xaqiijisay da'doodu intaas tahay wiilashan waxaa lagu eedeeyey inay ka qayb qaateen
kufsi wadareed waana 13 jir iyo 14 jir waxaa la ii sheegay gabadha kufsiga loo geystay inay tahay da'deedu 6 jir gabar yar oo da'deedu ay tahay 6 jir inay tahay arrintaas waxaan ku soo helay ila kale in gabadha kufsiga loo geystay da'deedu ay tahay 6 jir wiilashan kufsadayna wiilka ugu weyn uu yahay 14 jir waxaa la ii sheegay wiilasha inta lagu eedeeyay kufsigaas inay yihiin 8 ay ugu weyn yihiin labadan sida la ii sheegay labadan wiil marka oo xiran 6dii kale in la sii daayay iyadoo la ii sheegay in caruurnimo loo sii daayay laakiin sida hadda meesha ka muuqata dhammaantood waa caruur marka wiilashaas xaaladooda waxaan la wadaagnay dad badan oo mas'uuliyiina waxaan la wadaagnay maamulka galmudug waxaan la wadaagnay mas'uuliyiin kale oo aan hadda maamul ka tirsanayn laakiin ka soo jeeda gobolkaas si arrintan wax looga qabto wiilashan waxaa la yidhi waxay xiran yihiin 45 cisho waana waqti dheer haddii aan maxkamadi xukumin ama aan markaa dembi lagu helin inay saldhig uun ku xirnaadaan 45 cisho waxa markaan anagu u raadinaynaa waxay tahay in wiilashaanu ay helaan cadaalad ciddii gabadha yar laga fara xumeeyena inay helaan cadaalad hal dhinac ma aha waan fahmi karnaa marka in ay cidda gabar yar oo 6 jira laga fara xumeeyey ciddii ka fara xumaysay hadday iyaga yihiin hadday kuwa kale yihiinba laakiin waxaa la sheegay in inta eedayntaanu ku wajahan tahay inay yihiin total ahaan 8 inay yihiin marka cunugtuna ay tahay cunugsa aad u yar oo 6 sano la igu sheegay da'deeda iyagana uu ugu weyn yahay 14 jir iyo 13 jir ay ugu weyn yihiin marka kolley waxaan isleenahay waxaa loo baahan yahay in cadaalad laga sameeyo oo dadkii dhibanayaasha ahaa gabadha laga fara xumeeyey cunugta saqiirka 6 jirka lagu fara xumeeyey iyo kuwan kaleba in haddii ay dembi leeyihiin dembiga ay leeyihiin lagu qaado haddii aanay dembi lahaynna in la sii daayo markasta waxay xaq u leeyihiin inaanay saldhig ku xirnaanin muddo intaas gaaraysa ayay xaq u leeyihiin sababtoo ah sharciyan sax ma aha ilmo yaryara intaa la egeg in saldhig caadi ah ay ku xirnaadaan ama muddo 45 cisho gaaraysa marka in dembigii haddii lagu gala la helana lagu maxkamadeeyo ma garanayo anigu kolley da intaa ilmo la eg ilmo ka yaryar sharciyan qaabka ay noqonayso anigu ma garanayo laakiin waxaa la ii sheegay in maxkamaddii gobol degmada qaabkii ay wax u xukuntay ay diideen dadkii gabadha dhalay marka waxaa loo baahan yahay sharci kala saara haddii wiilashanin ay mataqaanaa ay ku xadgudbeen ku xadgudubtay saldhiga taliyaha saldhiga uu ku xadgudbay ama booliisku ku xadgudbay haddii maxkamaddu wax cadaalada xukuntay iyo wax cadaalad darra hadday xukuntay anigu ma ogi waxay maxkamaddu xukuntay laakiin wixii maxkamaddu xukuntay ama qaaliga degmadu uu xukumay waxaa la ii sheegay inay diideen ma dadka wiilka mase waa dad booliiska anigu ciddida garan maayo laakiin waa ka diideen dad mas-uuliyiina oon anigu la xiriiray oo iyagu wacay markaan la xiriiray kabacdi ayaa ii sheegay in ay maxkamaddii ama qaaligii xukunkii meesha ka dhacay inay diideen dhinaca gabadha cunugtaa yare la farxumeeyey marka waxaan is leenahay waxaa loo baahan yahay in la helo meel lagu kala saaro xaqa iyo xaqdarrada in lagu kala saaro qof walbaana wuxuu xaq u leeyahay midka xataa qofka xataa wax dulmay ama qofka wax dhibay wuxuu xaq u leeyahay in cadaaladii la marsiiyo ama sharciga hadday tahay caruurnimada iyo hadday tahay hadduu weyn yahaba in la marsiiyo cadaaladda qaabkii loo marsiin lahaa in la helo sababto annagu dad muslima aan nahay diinta islaamkana kala xukumaysa qof walbana ku fulinaysa waxa uu xaqa u leeyahay gabadhii yarayd ee la farxumeeyana in cadaalad ay helaan qoyskii ay ka dhalatay in cadaalad helaan marka waa inaan
siday noqotaba inaan xal u helno ma aha inay iska xirnaadaan ilmahan bilaa si aan saxayn u xirnaadaan marka walaalayaal ujeedada maanta aan barnaamijka u soo galay waxay ahayd inaan idinla wadaago inaan gaarsiinay nidaamkii meesha ka jiray inaan gaarsiinay arrintaas inaan gaarsiinay taliska gobolka galgaduud inaan gaarsiinay maaragtay dowladda ama maamulka galmudug dowlad goboleedka galmudug inaan gaarsiinay arrintaa wiilasha 6na ay la sii daayey mataqaanaa 2na ay xiran tahay oo waxyaabaha annaga nagu abuuraya shakiga ay tahay in 6dii isku reerka ahayd runtii markaad cadaalad raadinayso ma aha inaad dhaliil aadan hubin aad sheegto laakiin waxa weeye gabadha iyo 6da wiilo la sii daayey waa isku reer 2da la xirana waa reer kale marka maxaa lagu kala saaray ma DNA ayaa lagu kala saaray annagu ma garan karno waxaa la rabaa marka in cadaalad la helo cadaalad in la helo ilmuhu ha ahaadeen saqiira ha ahaadeen laakiin waxaa jira diinta islaamka waddankan xataa waxa weeye markii la xiro juvenile crime la yiraahdaa markii ama xabsiga oo ilmaha yaryar ayaa lagu xiraa markii cunug yar oo teenage ama ka yar da'dii qaangaarka ka yar markuu dembi galo marka waxaa la rabaa in aan ilmo yaryar oo 13 jir iyo 14 jirnayaal ah inaysan xabsi iska dhex joogin saldhig aanay iskaga dhex xirnaanin muddo 45 cisho ah oo wixii shareecada islaamku ay ka qabto dembigan hadday galeen iyo haddaanay gelinba lagu kala saaro si dadkii cunugta yar laga dhibaateeyeyna ay u helaan cadaalad oo u dareemaan in cadaalad loo sameeyey kuwii wiilashan dhalana ay u dareemaan in cadaalad loo sameeyey marka waxaan kolley inta waxgaradka ah dadka deegaankaas ka soo jeeda iyo culamaa udiinka iyo mas-uuliyiinta waddanka mataqaanaa gobolka maamulka galmudug iyo hadday tahay booliis iyo hadday tahay madaxdaba in arrintaas xal laga gaaro oo wiilashaas iyo gabadha yar ee la faraxumeeyey labada qoys qolo walbaaba dhinac wuxuu tabanayso in xal laga gaaro waxa annagoo aan ka cabanayna oo ka qaylinayna waxay tahay inaanay ilmahani isaga xirnaan saldhig 40 iyo mataqaanaa 5 maalmood wax saxa ma aha waa inuu cunugu xirnaadaa isagoo dembiile ah oo dembigii lagu helay qaabkii loo xiri lahaa iyo meeshii lagu xiri lahaayna maaragtay la geeyaa laakiin aanu saldhig bannaankiis inuusan silsilad inuusan kula xirnaan marka arrintaas ayaan codsanaynaa waxaa hadda la ii soo qorayaa in 10 jirka waxa aniga la ii sheegay inay ilmahani ahaayeen inay yihiin mataqaanaa kuwii ugu waaweynaa laakiin waxa halkan la iigu soo qorayaa hadda kuwa la sii daayey inay yihiin 17 jir 16 jir 15 jir 18 jir 14 jir iyo 19 jir xaqiiqda ilaahay baa garanaya anigu ma garanayo laakiin kuwa la sii daayey 6da la sii daayey 15 jir 16 jir 17 jir 18 jir 14 jir iyo 19 jir inay yihiin marka in intaa la sii daayo kuwana la hayo laneeyahay waxa ay wada galeen waa mataqaanaa kufsi wadareed waxay u baahan tahay baaritaan waxay u baahan tahay in la caddeeyo waxa ay galeen hadday yihiin wiilashani waxaana laakiin iyaduna cajiib ah runtii anigu ma rabo inaan ka hor dhaco kolley dabcan waxaan baaritaan waa lagu samayn doonaa dad aan ku kalsoonahay inay arrintan u kuurgeli doonaan oo runtiina ka soo jeeda beesha mas-uuliyiin ka soo jeeda beesha u badan balambal ayaan arrintaa kala hadalnay kalana xiriirnay ayagaana faraha ku hayo maamulka galmudugna waan maaragta maamulkii meesha ka jirayna iyagana waan gaarsiinay taliska guud oo booliiskana waan gaarsiinay gobolka galgaduud runtii waxaan rajaynaynaa in meeshaas ay ka timaado cadaalad haddii ilaahay idmo oo haddii wiilashan waxa loo haystaa ay ku caddaadaanna la marsiiyo
haddaanay ku caddaanina la sii daayo runtii ma aha xamaasad waa cadaalad cadaaladuna waxay u baahan tahay in la faryasuuliyo oo qof walbaaba uu wixii qofkii dembiilahana dembigii uu galay la marsiiyo qofkan dembi gelinna la sii daayo waa intaas waxaana filayaa annagu dad muslim ahaan nahay intaasu ciday dhibaysaa inaysan jirin laakiin waxa aan diidanaha waxay tahay dad in la iska haysto oo xabsi isaga jiraan iyadoo aan waxba lagu cadday waxaa haddana shaki muujinaya qaadiga xukunkiisa in la diido qaadiga xukunkiisa maxaa loo diiday waa ma garan karna aniga laakiin waxaa la ii sheegay in la diiday xukunkii qaadigu uu riday oo macnaheedu dabcan aniga caqligayga ii muuqata inay wiilashaanu yihiin dad aan dembigaa gelin inuu xukumay ama si kale inuu wuxuu xukumay oo da'dooda iyo wax la xiriira inuu qaab wax u xukumay laakiin waxaa la ii sheegay inuu diiday oo dad mas-uuliyiina oo gobolka meesha ka soo jeeda ay ii sheegeen in la diiday laakiin arrintaas ay gacanta iyagu ku hayaan marka waxaan rajaynaynaa in arrintaa xal laga gaaro waxaan la hadalnaa waalidkooda noo xanaqiijiyey da'doodu inay tahay 13 iyo 14 sano marka arrintaas waa arrin xaqiiqo ah oon anigu shakhsiyan la hadlay hooyadii dhashay carruurta oo ii xaqiijisay da'dooda waxaana ii sheegtay iyadoo subaxdii ciyaalkaasu ay dugsi u socdaan oo ay quraac u samaynayso in booliisku u yimaadeen oo ay halkaa ka kaxaysteen ilaa halka haddaana ay halkaa ku xiran yihiin markaan weydiiyey sababta loo kaxaysanayana la ii sheegay haddaad rabto inaad wax ka ogaato saldhigga imaw saldhiggana intii aanay loo haysto arrima noocaana loo sheegay waxaa kaloo la ii sheegay inay daruufba dhibaato aad u badan inay xabsiga ku haysato meeshaas ay ku haysato ilmaha oo reerkuna aanay ahayn reer tabar badan ilmahana aanay jirin wax mataqaanaa meesha ay ka helaan oo nolol ah haba yaraatee aanay jirin oo habartu waxay soo hesho ay ugu qaaddo oo ay saldhigga ugu geyso marka ase dad macnaha aan nahay muslimiin ah waxani waa carruur laakiin dembiga haddii inta lagu helayo ama baaritaanka oo socdo xataa ma aha dad waaweyn oo baxsanaya 13 jir ma aha dad baxsanaya waxaa nala gudboon xataa inaan u ogolaano inay waalidku la noolaadaan ilaa macnaha ay maxkamadda lagu xukumayo ama sax ma aha saldhigga hortiisa inay silsilad lugaha uga xirnaadaan 45 maalmood waa arrin aad u dhib badan marka waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta ama dadka waxgaradka ee deegaanka ka soo jeeda way dhib badan tahay in ilmo yaroo la kufsado 6 jir ah laakiin waa in la caddeeyaa ciddii kufsatay hadday dhammaan 8 qof yihiin iyo hadday 2 yihiin waa in la caddeeyaa mana dhici karto in 6daani ku markhaati furaan 2dan ma dhici karto cadaaladna ma noqonayso waxaa dhici karta 6daanu inay israaceen oo yidhahdaan waa ayaga ee in la hayo kuwan waa in la helaa wax ka madax bannaan 6dooda waa in la helaa waa inay gabadhaa yare iyadu heshaa meel ammaan ay ku kalsoonaan karto oo ay ku sheegi karto ciddii dhibaatada u geysatay sidii dhibaatada u dhacday oo aanay waxba ka baqin iyo in wax ka daba yimaadaan si loo helo ciddii falkan ka dambaysay falkan waxaa la ii sheegay asaguna inuusan ahayn fal hal mar dhacay oo uu ahaa fal soo jiitamay oo muddo hore bilowday oo cunugta kufsi hal mar lagu sameeyey arrintaanu aysan ahayn oo ay tahay arrin silsilad ahayd oo dad soo bilaabeen oo dad kale ku soo biireen oo dad kale ku soo biireen oo dad kale ku soo biireen qorshe noocaasa inuu ahaa waxaana la ii sheegay in cunugta la cabsi geliyey oo la yidhi cidna uma sheegi kartid marka waxaa la rabaa in la helo meel cunugtii ay ku markhaati furi karto sidii ay wax u dhaceen si cadaalada loo helo oo cunugtan dhibaatada loo geystana mataqaanaa dadkeedii ehelkeedii cadaalad ugu helaan oo dadkii dembigan ka sameeyey dadka halkan la igu soo qoraya dad qaangaara waaweyn 19 iyo 8 iyo 7 iyo 16 baa ku jira runtii anigu ma caddayn karaa arrintaas laakiin waxaan idin caddayn karaa in dadka dembigan hadda loo haysto wiilashan loo haysto inay yihiin 13 iyo 14 oo ay yihiin 2 wiil oo isla dhalatay kana soo jeeda beesha ma dhibaan intaasaan idin caddayn karaa waxaan kaloon idin caddayn karaa 6dan la sii daayey iyo gabadhuna inay ka soo jeedaan beesha mareexaan ee meesha u badan ama degta balambal
beelaha ugu badan ka mid a marka walaalayaal ma aha annagu wax xumaan ah iyo wax kale iyo wax mataqaanaa aan raadinayno kale ma jirto waxaan raadinayna waxay tahay gabadhaa yarina inay cadaalad hesho wiilashaan xiranina hadday dembigaan leeyihiin in lagu xukumo laakiin aysan noqonin silsilad inay lugaha uga xirnaato meelay adduunka ka jirtana lama arko waxaa annagu caalamka ma gaari karno caalamka dembiyada inta lasoo baaro markii lasoo caddeeyo kabacdi ayaa loo xiraa ciddii dembigaa gashay laakiin inagu ma aanaan gaarin heerkaa laakiin waxaa jirta qaabo badan oo loo baari karo oo loo caddayn karo cidda macnaha dembigaas gashay iyo qaabkii loo galay iyo cidda mudan in loo ciqaabo si cid walbaaba ay ugu kalsoonaato cadaaladda meesha ka jirta marka intaas ayaan uga gudbaya waxaan rabaa arrin kale oo hadda taagan inaan kusoo daba qabto runtii waxaa jirta gabar soomaaliyeed oo u guursaday wiil soomaali ah gabadhii lagu qasbay in ay wiilkii lagu qasbay inuu gabadhii furo qora caaradiis lagula qasbay inuu gabadhii furo gabadhii qasabaa lagaga furay gabadhii markuu furay kabacdi waxaa la soo baxday inay gabadhii uur ku soo baxay oo wiilkii laga furay uu leeyahay gabadhii lagu qasbo inay iska soo rido cunugan waxaan nahay dad muslimiina subxaan allah in lagu qasbo gabadhii inay cunugan soo rido inay gabadhii cunugan soo rido in lagu qasbo gabadhiina ay diido ay tiraahdo anigu cunugan ma soo ridayo mana dilayo cunugani markii uu dhasho ayaan ciddii dhashay ku wareejinaya waa arrin saxa walaalayaal waa arrin jirta oo dhabahoo taagan hadda taagan wey waxa weeye marka in la yidhaahdo gabadhii iska soo rid lagu qasbo war waalid cunugii ay awowaha u hayeen raba in la dilo oo raba dembi iyagoo gabadhoodii ay guur gaartay raba dembi intaa la eg inay galaan raba oo ah dad qabrigii kulaalaya sababtoo qofku markuu 50 sano gaaro waa qof waxa uu sugaaba ay tahay inuu dhinto uu u diyaar garo bal in waalid ay yiraahdaan ilma islaama soo rid markii hore u diyaar garoobaan inay yiraahdaan waa in qasab looga furo xabad halka inta looga qabto la yiraahdo fur gabadheen oo naftiisa uu ku badbaadsado yiraahdee gabadhiina waa idin furay اللي يراهي قبل ما أوربا لا ها سورد عنق بالإله ما يكون شيء أنا وحنا ضد مسلمين انتي كجرتا انتي دين تنادى دين تيدا عقيدة أنا سنة كتاب دين الإسلام وإلهي كسر دجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت ضد مسلمين اسقبل لك كلا فرع حبط لك كلا فرع عنصرية أوجد حقيقة جرتا حدنا حلا يلي إن لا ديراه قبل إسكت سورد ما حالتان كهذا حالة بين أهمها وحالة ضب أو هذا قعنت اللغة هيو marka sidii u dhacdaan idin sheegaya gabadha hadda cunugi way dhashay laakiin sidii marxaladdu u dhacdaan idin sheegaya fadlan walaalayaal la wadaaga dadka si dadku ay uga fuujignaadaan ayna dadkan wacyi ugu noqoto inaanay diintooda ku iibsanin qabaliyad waxan waa qabaliyad cunsuriyadda lagu sheegana waa waxa weeye markay gaarto darajada saddexaad uu qofku cunsur isu bedelaya laakiin waa qabaliyad iyo xamaasad iyo hawl shaydaan wey marka sidii dadku ay uga baraarugaan arrintan inaad sheer garaysaan oo la wadaagtaan dadka barnaamijka idin soo gudbinayno gabadhii waxaa lagu qasbay marka la yidhi cunugii ilaa waa inaad soo ridaa gabadhii waxay ku adkaysatay inaan anigu dhinto oo cunugaa ila dhinta moogiin aniga ilmo bini aadan oo aanan oo si saxa oo xalaal ah ku dhashay oo aabbihiis layga furay iyagii dili maayaan laakiin markuu dhasho haddaad leedihiin cunugan ma rabno dee waalidkii dhalaa raba aabbihii iyo awowihii iyo iyadii baa raba ayaan cunugan ku wareejinayaa iyagaa korsanaya laakiin anigu ma dilay gacanteyda kuma baxayo cunugan gabadhii dhibaato badan iyo rafaad badan waxay soo marto cunugii wuu u dhashay waxaa la yidhi cunugan waa inaad fogaysaa haddii kale waxaan ku ridaynaa
god meesha ku yaal ama meel ceel ah oo waxba laga soo bixi karin aan ku ridaynaa waa gabadhii baa sheegaysa ma aha arrin maaragtay been abuur ah gabadhii baa sheegaysa dhibaatadana ku dhacday gabadhii marka waxay la baxsatay cunugeedii iyo nafteedii waxay la baxsatay 1,000 kilomitir si ay uga badbaado in cunugeeda la dilo ayada ama ayada dhibaato loo geysto ilaa 1,000 kilomitir ayay la baxsatay ayada iyo cunugeediiba meel ay ku caafimaad qabaan oo ay ku nabad qabaan ayay joogaan maanta laakiin waxaa nasiib darro ah in waalidiin soomaaliyeed oo muslimiin ah ay u dhaqmaan noocaas oo ay ilmo soomaaliyeed ee isqabana kala furaan ilmo soomaaliyeedna u bareeraan inay yidhaahdaan ha la dilo oo ha la soo rido ama markii ay dhashaan god ha lagu rido ama ha la fogeeyo waa nasiib darro aad weyn wax sababana oo loo sameeyaana aysan jirin wax sababa oo loo sameeyaana aysan jirin nebiganagu wuxuu noo sheegay inaan carabku uusan carabka uusan waxba kaga duunan cajabku inuu carabka waxba kaga duunan waxa lagu kala horeeyaan ay tahay taqwada ilaahay midab lagu kala duwo islaamkuna inuusan midab kala uusan kala lahayn almuslim akh almuslim qofka muslimka waa muslim qof kale muslimka walaalkiis almuslim aljasad alwaxid dadka muslimiinta waa jir waaxida marka goormay gaartay inay isdilaan oo iswaxeeyaan ayagoo qabiil keliya igu qabiil maayad keliya oo qofkan loo dhibaateeyo qofkan kale inuusan ku qabiilahayn oo ilmo dad isqaba loo kala furo inay kala qabiil yihiin oo ilmo la yidhaaha loo dilo inaysan qabiilkaas ahayn intay naga soo gashay xaggee ka timid waxaan u baahannahay wacyigelin badan dadku inaanay diintooda iibsanin oo aanay diintooda uga tegin aysan isu fidnaynin qabiil darti aniga maanta haddaan dhinto qabiilku waxba ima taray waxaan la gelayaa qabriga oon la kulmayaa mataqaanaa wixii anigu aan samaystay maanta waxaa wax og runtii kuwa qabiilka u dhaawacmay aa wax og oo cuuriyaanka oo aan qabiilkuna soo agmarayn waxaa wax og kuwa dhibaato oo qabiilku dhibaatadu leeyahay kuwa inta qabiil u dagaalameen oo u dhinteen oo u baaba'een oo dad u dileen oo u rafaadiyeen nin wiil yare wax soo bartay oo kuraastii qaatay asagana qabiilkii dhammaaday isagoo keligii ah oo dhig qaba looga tegey magaalada dhexdeeda oo markuu yidhahdaa war naga tag jaahil iyo xunkaa lagu yidhahdo gacan ku dhiglaha ninkaasaa wax og hadduu maanta dib u celin karo oo wixii uu dilay iska celin karo oo qabiilkii iska tirtiri karo oo maanta wixii dib u soo celin karo wuu samayn lahaa laakiin ma samayn karo kuwaasaa wax oga hadda jooga ayagoo rafaadsan oo dhig islaan qaba oo aan cidi qaymaynaynin oon cidi sharfaynin oo hadduu cuuriyaan yahay waalidka ag yaallo oo hadduu ilu baxday asagay u taallaa oo haddii lagu gocantaa shaqa asaga u taalla ay tahay wax lagugu qadarinayaa ma jirto sababta wax lagugu qadariyaba ma aada samaysan dad muslimaad dishay dad muslimaad la dagaashay dad muslimaad dhibaataysay wax lagugu qadariya ma aadan samaysan marka kuwaasaa maanta og qabiilku inuusan macno lahayn sababto iyagoo noolay waxay ogaadeen in dariiq looga tegey oo wixii shalay loogu gacan haatinayo lalahay geesiyaalaad tihiin hadda la leeyahay jaahil iyo cuuriyaan iyo ilaa iyo loogu maaragtay magacyo looga dhigo hadday og yihiin laakiin kama noqon karaan marka walaalayaal in dad la garayba qolfii baadiyo ku nool oo aan waxyiguba gaarin la garay qofkii baadiyo ku nool waan ognahay inay way dhacday qabaa'ilada hadda xataa yurubay dhacday inay ku kala furteen gabdho qabaliya dad isku diidaya oo mataqaanaa xataa arrimo siyaasadeed u kala furanaya way dhacday laakiin waxa ka hadlaya ninkii laba garayba maaragtay jooga baadiyo ama aan diintii waxba ka baranin ama aan waxyigaba si fiican uusan u gaarin sababta waxaan aragnay dad aan shahaadadaba aqoonba oo hadda nool ayaa jiro soomaaliya jooga oo culummo hadda nala joogta magaaladan isku dayeen inay diintii fahamsii waayeen oo soomaaliya ku nool way dhacday laakiin qof reer magaal ah magaaladii jooga laga yaabo inuu diintii wax ka fahmay laga yaabo inuu qof aqoon layahay hadduusan aqoon lahayn nin dad magaalo jooga magaalo ku nool ah xoogaa xadaarad leh inay ka shaqeeyaan cunsuriyad iyo qabaliyad cunsuriyadda lagu sheego waa qabaliyadun
وهرير كان أنا قبل ما سينا بريان استقالنا إيو أنا متقنا بري إنسان أقول سمايان إيو وعنصريته وقبلية إن ضد مسلمين أو إسقاط إن لقوا كلا فرو حتى أنا المهود اللي يسكت ضي إن للدلو وعجيب marka walaalayaal waxay tahay in qof kasto annaga naga mid qof walba wuxuu mas'uul ka yahay naftiisa iyo ehelkiisa mas'uul ka yahay inaan adigu anaada ku kacin ilmahaaguna inaysan ku kacin qaraabadaada intaad ka gaartana inaysan ku kacin falalka noocaas sababto haddaadan adigu ku kacin ood adigu ilmahaaga iyo naftaada ka badbaadiyo eheladaada mas'uulka eheliyad aalkaagana mas'uula kaa sar يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أكورت على ودكين كوين مسلمين تاعون نفتينا يأهلكينا كبد بادية النار مركا إنا قفك الظلم يا إنا ذا أقول القادم وحداد كجوجي كرتنا أتقصب وجوجي عنت هذا وجوجي سو حداد كجوجي كرنا أفكار وجوجي سو حداد كجوجي كرنا أضعف الإيمان إنا قلبك ككره هذا لقارب مركا إن قفك استو أنك نجمده وديدو waxyaabaha noocaas ee dulunka ah qof kasto islaam oo la dulminayo qof kasto islaam oo la dulminayo waxa la rabaa qalbigaaga inuu diido hadana aado madow aado qaraabadada aado yoon ahaan islaamnimadaaba saasaba inaad caadil noqoto isku dayda adigu inaad caadil noqoto hadaadan noqon karin xataa iska raad iska dayday waa sax wallahi sababtu waxaan leeyahay marka salaada tukanayday war salaada ku qoshuuco ooye xataa adna karin xataa iska keena iska dayday waa sax marka qofku xataa wuxuu samayn karin uusan ahayn xataa waa inuu iska doondoona uu iska raadiya lacalla in ilaahayba ka dhigo oo cadil ka dhigo qofka marka inaad adigu naftaada ka mamnuucdo awlaadaada ka mamnuucdo intii aad ka naxaysana aad ka mamnuucdo intii muslima adigu gaarsiin kartana aad gaarsiid haddaad aragtana aad joojisid haddaadan jooji karinna aad niyadda ka karaahsatid sababta walaalayaal anigu ma garan karo sababta qof Soomaaliya qof kale Soomaaliya walaalkiisa cunsur u noqdo anigu ma garan karo ha siyaasadda isku diidaan siyaasadda way isku diidi karaan dadku ku kala ra'yi duwan karaan aragti waa lagu kala duunaan karaa laakiin inuu naco uu reerka uu yahay uu naco isagoo Soomaaliya qofka uu nacayana uu yahay sabab mideeda kale waxaan rabaa halkan inaan wax yar kaga darsado waxaa jira aniga af Soomaaliga waxa lagu yaqaan waxa jira wax la yiraahdo carabtu yiraahdaan gawaad waxa weeye ninka dumarka anshaxa xun la shaqaysta ayaa la yiraahdaa laakiin af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa ma garanayo miyaadan la mid ahayn haddii aad gabadhaada iyo walaasha aad nin Soomaaliya ka ilaaliso walaalka nin kaloon ku aqoona aad u ilaaliso maxaad ku kala duwantiin bal adinku isweydiiyo waxaad ku kala duwantiin maxaa adiga walaasha iyo gabadhaadu ciday guursanayaan iyo cida ay wax la wadaagayaan yaa adiga mid baa lagu yiraahdaa hal arin hadday diin ahaan qofkaas aanu diinta haysanin oo qof diin la awsan ahayn oo qof ahlu salaada awsan ahayn xaqaad leedahay inaad tiraahdo qofkaanu ahlu diin maaha laakiin inaad adigu walaasha iyo gabadhaada ninka ilaaliso ninna u ilaaliso miyaynan xishoonayn maxaa gabdhahana daba dhigay ciday dooranayaan maxaa aniga gabadhayda daba dhigay wiilkay dooranayso anoo aabba ah wiilkay guursataan anigu aabba u noqonaya adeer aan u noqonaya wiilkay gabadha keenaan adeer aabba u noqonayaan waysada iga jabinay maxaa marka aniga i daba dhigay gabadhayda wiilkay gabadhu soo xulanayo iyo gabadhayda wiilkay xulanayso maxaa i daba dhigay balaan isweydiin walaasha wiilkay guursanaysa iyo wiilkaana guursanaynin reerkii ka guursan reerkay guursanaysid maxaa adiga mas'uuliyad kaa saaray bal isweydii miyaanay ceeb ahayn inaad walaasha rag ka ilaaliso ragna u ilaaliso miyayse gawaadnimo ahayn waa ceeb waa wax laga xishoodaa haddaad aabba tahay iyo haddaad walaal tahay iyo haddaad adeer tahay waa wax laga xishoodaa inaad gabadhaada iyo walaasha ku tarbiyayso tarbiyad wanaagsan wiilkay kuu keenaanna aad soo dhawayso oo aad sidaa ay kugu xushmeeyeen aad ugu xushmayso ood u siiso ood u guuriso xaq u leedahay laakiin nimaan ku aqoonin oo aan ku garanayn inaad ugu ilaaliso gabadhaada walaasha
waa wax foolxun wiil kale aan waxba kuu dhibina aad ka ilaaliso oo tiri kanuma guursanaya kan guurso maxaad adiga kaa dhigay sidii booliiskii traffic lightka taagnaayo kala firimbigays maya ka istaakan maya kan raac maxaa kuu geeyey ma iska cibaadaysatid ma wax ka qayr badan raacatid maxaa kuu geeyey inaad hawshaas adig kuumaba taallaba ciyaalku ilmuhu sida isu raadsanaya sida isu doonanayaan adigu ku tarabiye waddadii wanaagsaneed waxay kuula yimaadeenna ka guddoon hadduu wiilkaaga yahay iyo hadduu gabadhaada yahayba maxaa kuu geeyey inaad midna u diidda midna aad siida maxaa kuu geeyey maxay adigase waxa midkii ilaahay kuu wanaajiyaa kuu wanaagsan midkii alle kuu wanaajiyo ayaa kuu wanaagsan adiga ma taqaanid wiilka kuu wanaagsanaan doona iyo ma taqaanid gabadha kuu wanaagsanaan doona wiilkaaga kuu keeni doona marka inaad la dagaasho dadaadan aqoonin oo aad qabiliyad kula dagaasho oo aad waqti iska geliso oo aad cuqdad iyo balaaye shaqayso waxaan loo baahan ama qof wanaagsan ama marka waa inaan xishoonnaa inaan waardiye ka qabanno ragna waardiye u qabanno wax laga xishoodo wey waa xaqiiqda waana ceeb gabadha wiilkay rabta hala timaado wiilkuna gabadhu raba hala yimaado waalidkuna waajib ka saaran waa inay isu guuriyaan hadday aabbaha dhinaciisa tahay iyo hadday gabadha dhinaciisa laakiin inay iyagu kala waardiyeeyaan oo yiraa kuwaana isma guursan karaan kuwaana waa isguursan karaan wiilkan ha aadina wiilkan aad gabadhan ha aadina gabadhan aad shaqo qof waalida oo xishoonaya u bannaanba maba u bannaanaba waa inuu cunugaagu xorriyad haystaa oo ku xulan kara gabadhuu rabo waa inuu gabadhaadu xorriyad haysataa ay ku xulan karto wiilkay rabto dariiqa islaamka macnaha dariiqa yani wadda islaami ah inay ku xulan karto wanaagsan adiga tarabiya lagu raaciyey laakiin laguma raacin ciday soo xulanaysa ayada waxaa lagu raac haddaysan diin ahaan waa kala talin kartaa waana ku diidi kartaa hadduu qofku diin ahaan uu u liito waa diidi kartaa laakiin gabadha wiilka ilaa heshiida maya ma guursan kartid xaggaad u wadaa marka yaad u ilaalinaysaa yaad u rabtaa qabiilaad u rabtaa wax wanaagsan ma marka walaalayaal barnaamijkeenii maanta intaasaan rabaa inaan kusoo koobo waxaan rajaynayaa in ay wax un naga anfacaan ayna waxna taraan waxyaabo badan oo aan ficil ahaan samaynana inaan iska dayno inay noo wanaagsan tahay diin ahaan iyo dad ahaan midna noogu wanaagsana soomaalida dham waa dad walaalo ah oo isla dhashay waa hal qoys oo qura runtii sababo ay isu diidaan ama isu dhibaateeyaanna ma jirto waxa aan ka hadlaynaana ma aha siyaasadda dadku waa ku kala siyaasaddu aragti duwanaan karaan laakiin waxaan ka hadlaynaa camal ijtimaaci oo caadi ah oo sunan ah marka waxaan rajaynayaa in qof walba oo na daawada uu arrintan ka wacyigeliyo intuu ka wacyigeli karo in uu ilaahay xaggii ajir ugu raadsado iyo wanaag sidaas ayaan rajaynayaa ilaahay nagu anfaco wadii bini aadanaan ahay wixii iga qaldaman haddii wax iga qaldameen raaligelin aan ka bixinaya dee wixii aan saxayna dee ilaahay xaggiisay ka noqotay marka intaasaan idinku dhaafayaa galabta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu